shirkan wada tashiga ahi ayaa waxaa daafuray maantay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere iyadoona ay goobjoog ahayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo waxaana kulan ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Shirka wada tashiga ahi ayaa ku saabsanaa sidii looga doodi lahaa isla mar ahaantaana bulshada magaalada Kismaayo ee u soo bandhigi lahaayeen baahiyaha kala duwan ee ka jira magaalada Kismaayo ee adeegyada bulshada si markaasi wax looga qabto. kulanka waxaa taabagelinaya hay-adda USAID ee Mareykanka iyadoona ay fulinayso hay-adda TIS3 qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee maanta laga dooday soo socota ee degmada waxaa daadihinayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmada iyo hay-adda la yiraahdo TIS Plus ama TIS4 ama TIS3 baa la yiraahdaa. waxaan sameynay qorshihii maanta waa maalinta labaad maanta waxaan sameynay qorshe fiican oo fadhiyo oo mug leh qorshahaasi hore loo qoraayo maan arag intaan xilka hayay maanta waxa weeye waa guul bay tahay oo wax badan maskaxdeeda ku taamayso baan qornay mustaqbalna u ah 5 sano soo socoto Jubbaland oo mustaqbal u ah waxaan mudnaanta koowaad maanta waxaan ka doonay baahida asalka ah anaga noloda maamulku way ka soo tagtay waxa loo soo diray bulshadii anoo gudoomiye ahaan hata waxaan u sii dhaadhicinay bulshadii hoose oo dhaqameedyadii baa fadhiyo culimadiinkii baa fadhiyo waxa fadhiyo dhalinyaradii haweenkii inta waxa la isku geeyay maskax mug leh waxaan nooga soo baxay wax cajiib ah oo aan xayta baahida Kismaayo ka jirta waxa weeye tagad macbila oo kalluumaysiga ku soo xirtaan oo hadda maadaama kalluumaysigii wax walba hal meel bay loo wadayihiin labo waxaan helay oo aan maanta qorshe maskax degan aan ku helay dadabis iyo xarunteeda guud meelaha ku gudbsan karno maanta waa helay ma sha Allah waxaan helay oo kale faa'iido noo ah biyo nadiif ina helno oo baahanay Maxamed Macalin Abshir waxaan ka socdaa xaafadda Gulwade gudoomiyaha xaafadda Gulwade waxaan rabaa inaan ka hadlo meetingkii maanta ka dhacay ilaa shalay halkan waxa ugu muhiimsanayd isdhexgalka bulshada iyo in bulshada talada wax laga siiyo sababtoo ah bulshada fikirka iyo baahiyaadka rasmiga bulshada ay ku dhex jirtaa marka aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciddii maartay ama sabalay gareynaysay ee kale USAID hay'adda USAID oo filayo inay sabalay gareynaysay waxaan jeclahay xaafadayada in aan ka hadlo baahiyaadkeeda ee xaafadda Gulwade runtii horeyna waan u sheegnay ma laha center xaafadda ay ku shaqeyso ama xafiiska xaafaddu ma laha waxay kaloo aysan lahayn police center ma laha oo xaafaddaasi meel saldhig dhexe oo hooseyso oo police ma laha waxa kale oo ay lahayn wadooyin wixii la dhigay hal wada xaafadda Gulwade dhex marto wadadina biyaha kala gooyo oo mar walba uu roob da'o halkan iskuulka ka iskuulka kalkaalka sukaysa ka kala go'da marka baahiyahaas iyo kuwa kale la mid ah oo solarkii uu ka mid yahay kulankuna wuxuu ahaa kulan wada tashi ah oo lagaga tashanayo degmada Kismaayo iyo tuulooyinka ku heeran baahiyaha ka jira laga wada hadlayo si fiican ayaa looga falaqooday barnaamijkaas oo aad moodayso in la dul istaago qodobadii loo baahnaa inkastoo aan hadalka la soo wada koobi karin anaga ka haween ahaan waxaan barnaamijkaas kaga doonay oo aan kaga hadlaynay in la xoojiyo ganacsiga haweenka iyo dhalinyarada si ay uga qayb qaataan nolosha aasaasiga ee qoyska. gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar u leeyahay madashan isla mar ahaantaana bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ahmiyad gaar u leedahay kulamada noocan oo kala si loo soo bandhigo baahiyaha gaarka ah ee ka jira magaalada Kismaayo. marka hore waxaa mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala oo si nabad soo keenay inta kadib maanta waxaynu fadhinaa kulanka wada tashiga qorsheynta baahiyaha degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda Kismaayo iyo tuulooyinka hoostaga kulankaas oo ujeedkiisu yahay in la ogaado baahida rasmiga ah ee bulshadu qabto oo bulshadu ay diyaariso waxyaabaha ay u baahan tahay si la isku waafajiyo qorshaha dawladeed iyo baahida bulshada oo aysan u dhicin
iyadoo meel looga baahan yahay MCH ay gabdhuhu ku umulaan in laga dhiso hool shirareed shirka lagu qabto marka waxaan rabnaa inaan iswaafajino baahida bulshadu leedahay iyo barnaamijka dawladnimada oo lagu qabanayo si allaaliyeed marka waxuu gundhigu yahay kulankaanu inay baahidu ka timaado dadka mudan oo iyagu runtii rabaa inay baahiyada soo gudbiyaan kulanka ujeedkiisu madaxweyne waa sidaas oo loo fadhiyo waana qorshaha 5 sano soo socota Kismaayo lagu hagi doono waanu ka samayn doonaa haddii alla idmo Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay kulankan isagoo ugu mahadceliyay hay'adaha deeq-bixiyaasha ee kulankan soo abaabulay gudoomiyaha degmada Kismaayo ana duqa magaalada Kismaayo inaan intii gacan ka geysatay barnaamijkan wax ku oolka ah waxaan leeyahay aad iyo aad baa ilaaha maaskale u mahadsantihiin waan idinku hambalyaynayaa dadkiina waa idin ogyihiin annagu aadan tumaysaan inaan idinka warqabinna waxaan idinkugu bashaaraynaynaa dadaalkiina iyo halgankiina waa la soconnaa hambalyaa idin leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan xuso hay'adda USAID oo maalgelinaysa iyo marka T3na waxaan leeyahay dadaalkii aad qodaan waad ku mahadsantihiin inta haddaan ka baxo shirkan nuxurkiisa waxa waaye baahida degmada annaga inaga timaada ma inay wasaaradda ka timaada ma inay degmada ka timaada ma inay meel kale ka timaada ma waa inay dadka ka timaadaa bulshada fikir aad u fiican waaye qorshaha aad wadaan baahida marka daad tiraahdeen bulshadan ka keenayna bulshada waxay u baahan tahan degmada Kismaayo 5 sano ku dhaqaynaa waxaan leeyahay idin garab taaganahay hambalyo 100% bulshada hoos ugu dhaadhaca baahideedana keena soo bandhiga ilaa baa baahitiri kar laag waa dadaalena dowlad goboleedka Jubbaland wixii karaankeedana degmada way la qabanaysaa haddana way la qabataa magaalada Kismaayo oo ka soo kabanaysa burburka dagaaladii sokeeye ee u geysteen ayaa haatan waxa soconaya mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo magaalada iyadoona hay'adaha deeq-bixiyaashu ay ka bilaabeen magaalada xog ururin ku saabsan sidii bulshadu ay u soo bandhigi lahaayeen baahiyaha xilligan ka jira magaalada Kismaayo si wax looga qabto hay'adda USAID ayaa ka mid ah hay'adaha xog ururinta ka wada magaalada Kismaayo si bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo baahiyahooda wax looga qabto aadan maxamed salaad